ما سنتين ما توماني من إلى السيري يا فوفو وماني من إلى السيري يا فوفو لكن وحانو يمي إلى فرحة يد بالدقة مالنت قرنك الله غيب صدو شعبي وينها قبل كاوضل قبل كاوضل وقبل تاريخ وين كله سوماليلاند وقبل كي حديدة هي ودبدا لوgu taagay nabadda iyo dawladnimada iyo qarannimada Soomaaliland shirkii halka ka dhacay 1993 waxa laga yaabaa badankiinu inay yaryaraydeen gobolka Togdheerna taariikh weyn buu ku leeyahay oo waa gobolkii laga dhawaaqay dib u soo noqoshada qarannimada Soomaaliland dhammaan shacbiga Soomaaliland waxaan ku hambalyeeynayaa xuska maalinta qarannimada waxaan doortay inaan la ciido oo farxadda la qaybsado reer awdal waxaan aaminsanahay oo rumaysnahay in nabaddu Soomaaliland dan u tahay in midnimada iyo walaalnimada shacbiga Soomaaliland dan u yahay waxaan rumaysnahay in Soomaaliland la wada leeyahay oo loo siman yahay ay dan u tahay Soomaaliland waxaan aaminsanahay inay Soomaaliland danteedu ku jirto cadaalad iyo in loo sinaado khayraadka dalka Soomaaliland waa nabad annaguna nabadda qaalib ay nagu tahay oo waanu taageersanahay maalmahan waxa maqlayseen in xamaasada jirtay wax kale kama dhalan heshiiskii ummaddu lagu socday baa laga leexday waxa ayaynu doorasho galno doorasho kale qabsanno xukunkuna uu noqdo in doorasho la isugu dhiibo soo sidaas maaha waxaa ogtihiin 20 bisha waxay noo bilaamayay diiwaangelintii waa la hakiyey komishankii waa la socotaan xaaladiisa waxaa loo baahayay in komishankana shaqadiisa loo daayo diiwaangelintiina ay noo bilaabanto doorashadiina ay noo qabsoonto xalayto axsaabta mucaaradka iyo madaxweynuhu way isu yimaadeen waxaa la isla qaatay in 18 mayna la weyneeyo oo axsaabta iyo xukuumadduba ay weyneeyaan waxaana labada xisbi garteen inay si wada jira u weyneeyaan si gaarana u xusaan waxaannu idinkula dardaarmaynaa midnimada labada xisbi iyo labada taageerayaal taasi waxay badbaadinaysaa Soomaaliland inay ku soo celiso dariiqii xaq ahaa ee sax ahaa waxa laga wada hadli doonaa 18 May kadib arrimihii komishanka arrimihii doorashooyinka waxaana Soomaaliland ku khasban tahay wixii danteeda ah danteeduna waa in doorashooyinka iyo diiwaangelintii xilligooda lagu qabto ballan baa meel noo taagan waa 13 Noofembar in doorashadii madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland qabsoonto inta ka horeysana waa in laga shaqeeyaa qabiyatirka dhammaan doorashooyinka waxa ka qabiyada ah oo ay ugu soo horeyso diiwaangelintii iyo komishankoo la howlgeliyo shacbiga Soomaaliland midnimadiisa waanu ka shaqaynaynaa waxaanu diidanahay in dariiqa Soomaaliland ku heshiisay laga leexdo biyaynu ogolle waxaynu ku heshiinay inuu ka leexano waxaynu doonaynaa in jidkii doorashada laga leexday lagu soo noqdo waxaan noo rajaynayaa dhammaanteen dabaaldeg iyo guul iyo farxad
iyo wadahadalkii oo inoo bilaabma iyo diiwaangelintii oo inoo bilaabanta iyo komishanka oo shaqadiisa faraha looga qaado aad iyo aad baa u mahadsan tihiin iyo doorashadii maalinteedii inoogu qabsata ballanteennu waa doorashada madaxtooyada inay noo qabsoonto 13 Noofembar siidhigiina waa kaas